aad ayuu mahadsan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye iyo maxaan ku golihiisa wasiirada golihiisa maxaan ku raadayay sharci dejinta baarlamaanka galmudug iyo guud ahaanba maamulka galmudug sidoo kale dadweynaha reer galmudug ayaa aad iyo aad u mahadsan soo dhaweyntii iyo qalbi furnaantii iyo marxabeyntii ay noo muujiyeen waa mid aad iyo aad noo taabatay annaga dhan sida dadka reer galmudug gaar ahaan caasimadda dadka degan aanay u soo kala harin oo ayaga oo dhammaystiran ay noo soo dhaweeyeen qalbi furnaan noogu soo dhaweeyeen aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin shacbweynaha dhuusamareeb iyo guud ahaan shacbweynaha galmudug intaba sida madaxweynuhu sheegay galmudug waa dowlad goboleed waxaana qaaday sida maamulada kale uu dhibaatooyinka qabatay dhinaceeda ka qabtaa laakiin dad firfircoon soomaaliya dhexdeedana taariikh dheeray ku leh haddana u taagan weli u heelan waayo dhulka galmudug ay ka kooban tahay in badana xor ah in yarna muxuu ahay shabaabka cadowga ku harsan weli waana u taagan yihiinoo maalin walba meesha oo dagaalka cadowga lagu haya aanu ka dhammaanin uu ka taagan yahay uu ka nool yahay oo maalin walba lala hortaagan yahay dadka ayay ugu horeysaa galmudug hormuud ka tahay waxaan ka shaqayn doonaa u istaagi doonaa dalka sidii looga xoreyn lahaa cadowgaas maxaan ku yidhaha muddada dheer meesha ku daahay dadka reer galmudugna ay nabad u ahaan lahaayeen sida fariinteennu meel kastoo meeshii hore soo marnana ay u ahayd caasimadda intaan joognay iyo ballanqaadkii doorashaduba ay u ahaydna waa mid weli soomaaliya heshiisa soomaaliya heshiisa marka waxay ka bilaabataa meel walba dadka jooga inay heshiis yihiin koonfur galbeedaan fariintaas u gudbinay reer galmudugna fariintaasoo kalean u gudbinaynaa si aan cadowga uga adkaano si aan dowlad xoog leh oo soomaaliyeed u helno annaga dadkeenna waa inaan qalbiga isu xaarnaa qalbiga iskala jirnaa kadibna soomaalida oo dhan muxuu ahay ay qalbiga haddana isku furtaa oo la iskala jiraa sidaas ayaanan muxuu ahay uga guulaysana cadowga marka fariinta aan la nimiday galmudug fariin nabadeed fariin dib u heshiisiineed fariin walaaltinimo fariin amni oo cadowga in layska kiciyaa dowladda aniga aan madaxweynaha ka ahay oo ay shacabka soomaaliyeed ii doorteen fariinteeda koobaad iyo teeda labaad iyo hortabinteeda koobaad iyo hortabinteeda labaad iyo teeda saddexaad waa amniga iyo in amnigaas aan gaarno aan himilada ah wixii ay u baahan yahay wuxuu u baahan yahay soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la awaayo leanna soomaalida dhexdeeda inay heshiis noqoto waaye dunidana waa u baahannahay waa aragnay kaalmadeeda saa ugu baahannaha waa in ayadana aan heshiis la noqona marka si soomaaliya heshiis aan u helna waa in ayada ka bilownaa dunida lama heshiin karno haddaan anaga dhexdeena heshiin cadowga iskama kici karno haddaan anaga dhexdeena heshiin meel kastoo ay soomaaliya joogto fariinta aan maanta magaalada dhuusamareeb aan ka gudbinaya waxay tahay soomaaliyey aan heshiino qalbiga aan ka heshiino heshiisyadii waa laysku yimiday waa xabadkaa laysa saaray waa la heshiiye ahay oo aan ku soo jirnay muddooyinkii hore o dhan waa noo shaqayn waayeen maanta meeshaan u baahana waa qalbiga inaan ka heshiino waay ilaahay idankiis shacabka reer galmudug fariinta aan la wadaagaynahay waa taas waanan dhegaysanaynaa duruufahooda gaarka ah haddii ay tahay midda abaaraha haddii ay tahay midda amniga haddii ay tahay culeysyada maxaan ku raha maamulka saaran haysta inaan la qaadno la wadaagno tala ka siino wixii aan maxaan ku irahday aan u heli karno garab istaagida maamulka aan la garab istaagno dadka reer galmudugna guud ahaan aan garab istaagno dhammaantood marka fariintaas ayaan u nimiday waan la joognaa dadkeenna waa warayso doonaa waana la kulmi doonaa aad iyo aadaa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu